السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahayga Soomaaliyeed iskoo noqod wacan oo xiisa leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala meel walba aad kala joogtaan ama meel walba aan kala joogno dhammaanteen Allah inagu xifdiyo waxaa jira farqi u dhexeeya inaad noqoto mid la jeclaado iyo in aad noqoto mid la ixtiraamo qofna kuma khasbi kartid in lagu ixtiraamo laakiin waad iska diidi kartaa inaan lagu ixtiraamin waxay noqon kartaa mid niyad jab ah iyo mid xanuun badan marka dadka kale aysan ku ixtiraamaynin dadka kuma dhageystaan markaad hadlayso waxay dareemahaaga iyo dareenkaaga iyo laxowgaaga iskaga leexiyaan dhinac si walba aad afkaar ka qurux badan afkaartooda ugu soo bandhigtid ma aha kuwa qaata iyagoo u jeeda inaad ka fikir qurux badan tahay iyagoo arkaya waxa aad samaynaysid iyo waxooda inaad taada wanaagsan tahay ayay haddana iska indhatiraan aysan marnaba aysan ixtiraamaynin afkaartaad usoo gudbisay ma ahan arrinku inaad u ahayn muhiim laakiin baro tabta oo wax ka ogow qaabkay dadku kuu ixtiraami lahaayeen kow bixi wax ka badan intaad rajaynayso inaad hesho ixtiraam bixi oo adiga wax ixtiraam si aad u hesho ixtiraam u muuji ixtiraam weyn naftaada wax kaa mudan oo ka mudan inaad ixtiraamtid ma jirto ku ixtiraam naftaada sida ay tahay ku ixtiraam naftaada inay wax qabad yeelato ku ixtiraam naftaada inaad haliyeyad ka dhigtid markaad naftaada ixtiraam buuxa siisid ixtiraam dadka kalene waxaa si toos ah u dareemaysaa inay ka turjumayso noloshaada yacni dadka idinka dhexayso wada shaqaynta nolosha waxbarashada wax walba waxay kugula macaamiltami doonaan oo kugula dhaqmi doonaan si degan oo ixtiraam ku jirto labo hadalka ugu dambeeya noqo waa muhiim inaad marka hore dhegaysato ra'yiga dadka kale ka hor intaadan adiga kaaga soo bandhigin haddii aad qofka ku raacsan tahay fikirkiisa ha ruxin madaxa oo ha tusinin inaad ku raacsan tahay ra'yiga haddii aad ku diidan tahay yacni beddelkeeda haddii aad ku diidan tahay ha ruxin madaxa iyadana ha tusin qofkan inaa fikirkiisa iyo ra'yigiisa aad ku diidan tahay qofku fikirkiisa xor buu u yahay si marka hore ra'yigooda dadka ha dhamaystaan ama ku raac ama ha ku raacin waxaad u baahan tahay inaad barato inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee hadla saddex ficilkaaga ha ka dhawaaq dheeraado erayadaada aad bay ugu sahlan tahay inaad erayadaada been ku sheegtid marka loo eego ficiladaada sababtoo ah waxa aad samayso waxay si xoog ah xiriir ula leedahay waxaad rabtid iyo waxaad aaminsan tahay waxaad doonto waad sheegi kartaa adoonan aaminsanayn si xoog leh adoon si wanaagsan u aaminsanayn waxa aad sheegaysid ayaad waxaad doontid afka ka dhihi kartaa laakiin ficilkaaga ayaa wax badan ka turjumaya uma baahnid inaad isa sharaxdo halka ay ficiladaadu kaa turjumayaan keliya xusuusnow hal shay ixtiraamka aad tustid dadka kale waa falcelinta kasoo noqota ixtiraamka aad naftaada u hayso waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu